muddooyinkii ugu dambeeyay garoonka Hargeysa Stadium ayaa martigelinayay kulamada kala duwan ee horyaalka caasimadda Hargeysa. Koox walba waxay dadaal dheer ku bixinaysay sidii ay u qaadi lahayd koobka caasimadda. Tababar adag iyo kulamada isdaba joogga ahaa ee ay ciyaarayeen kooxuhu ayaa keenay inay dhaawacyo la soo darsaan ciyaartoyda. Haddaba caasimadda Hargeysa waa markii ugu horeysay ee laga hirgeliyo xusbitaal u gaara dhaymaha ciyaartoyda. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay daktarka adeegyada dhaymaha u fidin doona ciyaartoyda waxaanu yiri og ahmiyadda isboortigu uu leeyahay muddooyinkan dambana ay sii badanayaan ciyaaraha naadiyada ee dalkeena lagu qabto iyo ciyaaraha madadaaliga ah ee gelin dambe iyo habeenba ay dhalinyaradu ay ku madadaalinayaan naftooda kuna jimicsanayaan waxaynu ognahay in ciyaaraha ay la socoto ay dhaawacyo soo gaari kara seedaha jilbaha waxa jira markaas seedaha hadii dhaawac soo gaaro keeni karaya in uu qofkii ciyaarihii ka fadhiisto ama uu nolol maalmeedkiisa caadiga ah waxa weeyaan gudan waayo waxa uu badan ee uu soo gaaraa waxa weeyaan seeda loo yaqaano ACL-ka waxay ku taala iyadu bartanka sida BCL-ka wareeg walba oo markaa keenaya in jilibku uu wareega wuxuu khatar ku keeni karaa in seedaasi uu dhaawac soo gaaro qaabka u badan ee seedan uu dhaawac ku soo gaaraa waxa weeyaan iyadoo oo waxa weeyaan lugta qofku ay luka ku dhidban tahay faraha iyo cidhibtu lugihiina ay kala fogaadeen haddii markaa uu wareeg galo bawdadii taasa qaabka u badan ee dhaawac uu ku soo gaaraa waxa weeyaan waa sida boqolkiiba 90 dhaawaca waxa isu geystay ciyaaryahanka laftiisa jimicsi fudud lagu bilaabo iyadoo la ilaalinayo oo la doonayo inaanu meesha ka bixin dhaqdhaqaaqi xubinta oo xubinta dhaqdhaqaaqeedina uu sii jiro soo wada laabto xanuunka darteedna qofku waxa laga yaabaa in markaa u baahdo in crutches ama ul uu ku dhutiyo uu qaato marka dambe waxa weeyaan dhaqdhaqaaqu soo wada laabto qofku u baahanaya in muruqyadii jilibka xagga hore iyo xagga dambe ka marayayba in la xoojiyo mararka qaarna qofku wuxuu u baahdaa brace kan jilibka la gashado nooc u gaaro ACL-ku uu leeyahay laakiin kaasi wuxuu qofka awood siinayaa in markuu soconayo inaanu jilibku kala wareegin ama dhilan laakiin se kuma ciyaari karo qofka kubadii haddii markaa qofku yahay qof athlete oo qofkan ciyaaryahana oo doonaya inuu noloshiisa ciyaaraha uu dib ugu laabto seedina markaa uu dhaawac soo gaaray dhaawacina uu laba nooc yahay inuu dilaac yar galay inuu laba u kala go'a hadii markaa uu laba u kala go'ay wuxuu qofku u baahanayaa in qalliin loo sameeyo qalliinkaas oo waxa weeyaan noqonaya in seed jidhka kale meel looga soo jaro inta u badan waxa laga soo jaraa tan gulubida seeda gulubida geestoodana waxaa halkaasi ka hadlay ciyaartoydii ugu horeysay ee loo fuliyo adeega caafimaad waxayna yidhaahdeen muddo laga joogo ayaa waxay soo gaaray in dhaawackaasi laga soo gaaray anigoo kubad ciyaaraya goor shalay galabnimadii ahayd ayaa anigoo facebooka si accidentally u isticmaalaya ayaa waxay ka soo baxay xog sheegaysa in dhakhtarka qaybta jajabka ee Dr. Ismaaciil uu keenay mid ka mid ah dhakhaatiirta takhasuska uu yahay dhinaca sportska iyo arrimaha quseeya ciyaartoyda iyo dhaawacyada ka soo gaara marka hore uma helin dhakhtar talaysiiya hore uma helin dhakhtar yani takhasuskiisu sportska uu ku kooban yahay iyo waliba seedaha iyo arrimaha quseeya jilibka marka saaka markii aan waxaan ka helay runtii talo badan soo dhaweyn fara badan sidoo kale iyo waraysi dheeraada markii uu sameeyay physical examination ama baaritaan uu sameeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helno dhakhtar sportska qaabilsan oo ka shaqeynaya sportska inkastoo wadanka hore u joogin oo loo tagi jiray wadanka aynu jaarka nahay Ethiopia oo ciyaartoy kamidi oo ku dhaawacmay ayaguna ila mid ahaa gobolada oo ayaguna Ethiopia u tagay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa uu yimaado waxaan aad u soo dhaweynaynaa Dr. Ismaaciil iyo sidoo kale Dr. Mahmoud Dasika kaasoo hirgeliyay adeegyaan hore u oolin dalka waxaan ku dhaawacmay koobkii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland 8 bilood ka hor alxamdulilaahi rabbil caalamiin adeegyo caafimaad dalka dibadiisa waan u maray haddana waxaan la kulmay Dr. Mahmoud Dasika waxaan aad u soo dhaweynaynaa Dr. Mahmoud Dasika
kaasoo naga haqabtiray baahiyo aanay bahweynta isboortisku hore u haysan haddana waxaan aad iyo aad wax lagu mahad celiyo ah inaynu dalka gudihiisa ku helno doctor baahiyaha naga qabtira dhakhtar noocan oo kala oo noogu yimaada dalkeena Soomaaliland hore ugu jirin dhakhtar caynkan oo kala u shaqeeya dhaawacii soo gaaray waxaan u tagay dalka dibadiisa Ethiopia waan gaaray hadda ma jirin dhakhtar Soomaaliland jooga oo takhasuskan oo kala waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta helo jawaab sax ah oo la iga sheego dhaawacii soo gaaray si degdegana haddii Allah yiraahdo qalliin degdeg ah u geli doono